بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله موضوع ما أنت لصو دورتي الحسد معناها حاسد لماذا وحينو كير هور مرينينا فضلك أوليه إن خيرك لدقيستو إن خيرك لقصو قيب قاطو حقيقة مساجد كان مسجد النور مساجد هذا أوس أنت عن أركيب الدين معك حقيقة وحكا جرى كالنت كوات مركي لدهو معناها خيرك إن لسو إجابه أما إن خيرك لدقيستو marka arintaasna waxa way bashiru wala tunafiru macnaha wala isku bishaareenaya macnaha wanaaga in la dhageysto macnaha in buu khala yareeyo arinahaas oo dhan telefoonkan qofka leh macnaha ha u yimaado insha Allah shiicawl arimahaas oo dhan macnaha waa lagu wanaagsan yahay hadana in la sii wanaajiyo insha Allah la doonaya xasadka markeenu u nimaado walaalayaal waynu soo koobina kelimada waqtiga iska ciriiri ah xasadka waxa lagu tacriifiyaa waxa waa at-tamanni bi izalati an-ni'am qofka inuu ku fikiro ama inuu rajeeyo ama inuu doono qof kale walaalkii ah inuu macnaha nicmadii uu haystay ka zuuliyo ama nicmadii wanaagii iyo fadligii Ilaahay uu siiyay dheeraadkii inuu macnaha qofkaas uu ka rajeeyo inay ka tagto asigana marka uu helo macnaha xaasidnimada taas baa leeyahay sideedaba umuuman xaasidnimadu ma banaana laakiin de aqsaam iyo ahkaam iyo bay leedahay noocyadeeda macnaha hadii macnaha inuu qaadano laba nooc baa loo kala qaadaa nooc macnaha xaraan ah sideedaba aan banaaneen iyo macnaha nooc laga soo reebayo umumkaas nooca ugu horeeyo marka waxa weeye oo nacana banaaneen nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiis ku yiri macnaha la tabaaqadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan macnaha ha isku dhabar jeedinina ha isku caroorina waxa weeye ha isku macnaha maxay tooday ha isxasdina marka waa la mamnuuc xasadka noocaas waa nooca koowaad oo xaaraanta ah waa in macnaha xaaraan uu yahay in qofka kale walaalka oo wanaaga haysto ama fadliga Ilaahay uu siiyo ama macnaha lacagta uu siiyo ama mansabka uu siiyo ama darajada uu siiyo inaad macnaha xasidid oo dhaad aniga maxaa macnaha kaas oo kale maxaa u noqon waaye asigana muxuu heerkaas u gaaray inaad dhahdid macnaha la diidayaa waa marka noocaas waxa la yiraahdaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa diidiye marka wakunu waxaad noqotaan cibaadallahi ikhwanan dad walaalaha noqda almuslimu akhul muslim muslimiintu waa walaalo macnaha walaaltinimadaas baa la doonayaa marka qofka inuu macnaha kula noodo walaalkiis kale wakunu waxa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku daray macnaha qof muslimna uma banaana qof kale muslim oo walaalkii ah inuu ka hijroodo ama uu ka macnaha ka jeesto ama ka fogaado ama uu gooyo saddex maalin wax ka badan saddex cisho wax ka badan macnaha qof walaalka inaad gooysid oo macnaha salaanta aad ka gooysatid walaaltinimada aad ka gooysatid lama ogola saaxiib baad aheedeen dacwada aad kala shaqeey jirteen masaajidkii baa la isku xirnaay haddana waxaad arkaysaa marmarka qaarkiis labadii qof oo macnaha aan is salaamin xataa salaanta islaamka aan iska qaadin waxyaalaha macnaha la yaab kale way oo la arkay marka waxa loo baahan yahay marka walaaltinimada aad in loo ilaaliyo xasadkana in macnaha saas nabi sallallahu alayhi wasallam u sheegay la isaga ilaaliyo qofka marka qofka kale muslimka inuu gooyn nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis kale ku sheegay xadiiskan hadda waxa wariyay Anas ibn Malik wariyay macnaha muslima soo saaray kan dambo sheegi doona Abu Hurayra wariyay asina muslima soo saaray macnaha sallallahu alayhi wasallam turfa'u al-a'malu yiri fi kulli jum'atin marratayn macnaha nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay a'maasha jum'a ka jum'a macnaha wiigiyo dhan laba jeera Ilaahay xaqiisa loo soo bandhigaa markii Ilaahay loo soo bandhigo laba jeer labaas maalinna wuxuu leeyahay waa maalinta khamiista iyo maalinta isniinta labada maalin baa loo soo bandhigaa Ilaahay a'maasha markaas oo fayunfaru likullin Ilaahay kulli uu dambi dhaafa illa li'abdin markaas adoon macnaha qof aanan macnaha maxay tooday qof kale oo walaalkiis cuqdad u qabo ama qof kale oo walaalkiis gooyay ama qof kale macnaha muslim xumaan iyo xumi u qabo waxa la leeyahay ayaga yaana loo dambi dhaafin meeshaas bay joogayaan marka xaasidnimada iyo walaalka aad gooysid cuquubada leedahay fiiri macnaha in lagu dambi dhaafay ka hor istaagtay marka nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiskaas uu ku cadeeyay marka noocaas hore waa nooc xaaraanta ah nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis kale oo kaga soo reebay la hasada illa fi ithnatayn uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra la hasada illa fi ithnatayn xaasidnimo ma jirto nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay illa labo in la isku xasdo labadaas baa banaan xaasidnimana macnaha xaasidnimo lama dhihi karo xaqiiqatan rajulun ataahu Allahu maalan فينفق فيه آناء الليل وأطراف النهار أما رواية كلا واحد فسلط على هلكته معناها وحالو سلطي إنه مالكي سهلاقه محكو هلاقه في الحق معناها وحكو هلاقه مالكاس جدك حقه يكو هلاقه وصدقي سنة قف كاسو كلاته
waad ka maseeri kartaa waxaad dhihi kartaa maseer camal waayo xaasidnimo ma ahan waxaa leedahay qofkan macnaha saan wax u sadaqaysanayo ilaahu maal isii si anigana saan ugu sadaqaysto hadeertaan macnaha waaqiciina haddaa usoo dejinno waa arkaysaa marmarka qaarkiis dad salaad jumcada soo tukanaya jiro oo iska soo tukanaya maasha allah iyo qof macnaha ku fikiraya war jumcadan waa bisha aakhirkii mushaarkii masaajidkana macnaha waa masaajidkii bal aan ku soo talagalo macnaha sadaqadi qofkaas oo kale maxaan dhahaynaa markaas waa qofkaas oo kale xadiiska qofka la doonayo in la noqdo oo lala tartamayo taas oo kale waa tusaale haddii aan soo qaadan marka warajulun aataahu allahu alxikma markaas fayaqdii biha ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ليه waxaa kaloo macnaha la ogol yahay in laga maseero ama xaasidnimo macnaha maseer noocaas loo qaado la ogol yahay qof macnaha ilaahay cilmi uu siiyay oo markaas ummadiina markaas ku kala xukminayo ummadiina barayo khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu macnaha arimahaas waa laga soo reebi karaa laakiin waxaa la diidaa xaasidnimada dunyawiga inta badan oo macnaha xoolahan ama mansabkan ama darajadan oo gaaray anigana maxaa u gaari waayay in la dhaho xaasidnimo noocaas waxaa laakiin qofka khayrka ina lagula tartamo wasaaricu ila maghfiratin min fastabiqu alkhayrat iyo macnaha falyatanafas almutanafisuun iyo in khayrka lagu tartamo waa wax sax waa wax sax laakiin waxa la deedayaa in la yiraahdo maya aniga meeshaan aan furtay meeshaan aan qoladeyda waa kuwan waa takooreyna macnaha ama qabiilkan ama qoladan wax xaasidnimada noocaas nabi sallallahu alayhi wasallam uu ka digay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka digay marka hadeenu macnaha u soo xaasidnimadan sideedaba marka jannadana dambiga ugu horeeyo laga galay xasdigu ahay adduunkana dambiga ugu horeeyo laga galay xaasidnimadu ahay markaas waa tii ibliis uu markii u sujuud la yiri nabi aadan calayhi salaam uu yiri asjudu liman khalaqta tinan ma waxa u sujuudayaa qof aad dooba ka abuurtay marka xaasidnimo ka waday inna shaydaana caduwwun lakum fattakhiduhu caduwwan inma yad'u xisbahu marka waa cadow waa shaydaan وانا حاسد نم وحونا ربا إن النار وكجيه مركب حاسد واي نبي آدم عليه السلام حاسد نمو وسجود واي مركز قال استكبرت أم كنت كبر وكجري مركب وحيلها صورنا وحيلها عذورها قلوب تكون عنويه مركب دم بيجوهر يا جنال لقى على حاسد دم بيجوهر يا الدنيا لقى على علماء حاسد حاسد وخلاص كان مركب واتي قابيل إيه هابيل قصة واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين مركز يري هابيل هذا لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب قابيل وحل سوق حاسد معناها علماء تاريخ الحليين مؤرخين معناها إنن باجرتي قارنا دنيوي قصدك الدنيوي إنه اسكو حسدينه هذا أون قابيل با معناها آد وحسدي كان أو مركز دمعة إنه دلو مركز واتو وصو قعن قادو دلي مركز يري هابيل أنا قعنكو ما هذا ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك مكديلا يعني قعنكو مسو تاجا يوره لكن قعن هدي اسكو تاجا وحين نقولها القاتل والمقتول في النار النبي صلى الله عليه وسلم حيري لبا مسلم هدي قرء اسكو قاتان أما سيف اسكو قاتان كان للدلي يكون واحد لبا نارتي قلايان نارتي قلاين أهل النار لكن مركز صحابة ويدين عن هذا القاتل فما بال المقتول وركن وابا قرني وحبود دلي كان لدلي محا أهل النار أو كنقضي مركز النبي صلى الله عليه وسلم يري كان حريصا على قتل أخيه وحور ربي أسيغن أو كدك دقاي أو عرّاي إنه ولالكيس كوكا قصي أسيغن كاقهر مرور مركز وحوايا فترة تصعد الصومالي إيو ما يلاب بدنا ودمدا ويابيسا مركز مسلمين تصاص حيلاس وكال أهل سجئ إلالي حتى ابن عباس مفسرين بدن يعلم بدن وحي قبان قف مسلم يديله أهل النار إنه ولي يتكسو بحين من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وكو أرى يكفسرين وانا تفسير كظاهرين تديل رع مذاهب بدن خالدا فيها وغضب الله مركا لكن هابيل معناه وحوجري أنيقا هدي أدشد أنيقا عنكو مسوف ما أنا بباث الدنيا ديالي مركا دنبي قوهري وحان رهنا جنة لغو قالنا حفدقو هاي دنبي قوهري والدنيا لغو قالنا وحو هاي حسد حنو كسو قتمينا معناها أنا إذن كل يري كلمة محايا توذي هالحديث سيدو كلا الإيمانك إيا الجنة إنو معناها كاما ممنوعة سيدو كلا النبي صلى الله عليه وسلم حجري معناها لا يجتمع في جوف رجل غراب في سبيل الله وفيه جهنم معناها ما كل مان قف معناها جهاد بور كسو قاري إيا جهنم معناها قيع ما كل مان والنبي سيدو كلا لا يجتمع في جوف عدن والنبي صلى الله عليه وسلم ليه هي إيمان وحسد معناها قلبك معناها قفكو ما كل مان
xaasidnimo iyo iimaan ilaahay inaan iimaan yeelatid ahlu iimaan oo taqi noqotid iyo inaa xaasid noqotid ma isku imaanayso macquul maaha marka sidaas daraaddeed inaa xasadka iska ilaalino khaasatan dadkii dacwada waday khaasatan macnaha aniga nafsadeeda iska kelimada aniga igu socotaa cumuuman dadka muslimiinta ku socotaa dadka ducaadu diinka ka shaqeynaya ahlu masaajidka ku socotaa in xasadka la iska ilaaliyo in macnaha aan walaalnoono in macnaha la isjeclaado in diinka la iskala shaqeeyo in macnaha lagu tartamo diinka ceeb ma ahan laakiin waxaa daran in macnaha tartankii oo xasad iyo shaydaankii iyo cadaawad iyo dadka walaalihii kala dhex geliyo taas waa mid daran hada wabillahi tawfiiq wajazaakum allah khayr wallahu a'lam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun